munaasabad Muqdisho lagu qabtay oo lagu xusayay maalinta shaqaalaha adduunka ayaa laga sheegay in muwaadinka Soomaaliyeed ee dawladda ama gaar ahaaneed u shaqeeya uusan helin xuquuq u qalanta. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xukuumaddu ay dhiirigelinayso helidda mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyagana laga rabo inay la yimaadaan shaqo ka duwan sidii sanado ka hor ay u shaqayn jireen. sidaas daraadeed ayay u suurto gashay in shaqaalaha rayidka ah oo dhan ay mushaarkooda helaan 3 bilood oo ugu horeysa sanadkan. shaqaalaha dawladda qaarkoodna waxay helaan 4 bilood ee bilowga sanadkan macnaheedu ay tahay Janaayo ilaa Abriil. waxaan rajaynaynaa bisha May dhexdeeda haddii Ilaahay yiraahdo ugu dambeyn bisha May dhexdeeda in qof walba uu heli doono mushaarkiisa laga soo bilaabo Janaayo ilaa Abriil. waxaan kaloo rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo qof walba inuu mushaar heli doono bil walba. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo xil uu ka saaran yahay hagaajinta hawl kasta oo la xiriirta shaqo ee dhanka dawladda. madaxdeedu waxa ay sheegeen inay qaadayaan tallaabo kasta oo horumarin u noqon karta shaqaalaha Soomaaliyeed. Saalax Axmed Jaamac wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in loo baahan yahay xirfadlayaal ka qayb qaata wax soo saarka dalka. awalan waxa laga maarmaana in la helo tababaro xirfadlayaal tababaraya shaqaalaha caadiga markaynu ka hadlayno Soomaaliyeed. xirfadahaasina waa inay ahaadaan kuwa ku aadan meelaha wax soo saarka leh ee shaqooyin fara badan laga abuuri karo. magaalada haddaad inan yar iyo gabadh yar uba waraysato waxay ku oranayaan waxaan ahay BA Bachelor of Arts ama Business Administration. waxaad moodaa in dhammaan dadku ay rabaan inay agaasimo ka wada bilaabaan. waa uu sii hadlay wasiirku oo waxa uu yiri waxaan xoogga saaraynaa inay shaqo helaan naafada Soomaaliyeed. shaqaalaha markaynu ka hadlayno dadka lixaadkooda u dhan yahay baynu bari sawirana laakiin dadka baahiyaha gaarka ah ama naafada ah waxay leeyihiin xuquuq muhiim ah oo dhammaantiin inaynu ilaalino u baahanahay. dhaqanka Soomaaliduna xogay waxaad moodaa halka inuu daciif yahay. Cumar Macalin Cabdi gudoomiye ku-xigeenka naafada qaranka ayaa goobjoog u sheegay in wasiiradii soo maray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hadalkan oo kale ay sheegeen balse miro dhal aysan noqon. hadalka wasiirka waxa ka horeeyay wasiirro badan oo na soo maray waxaan la kulanay wasiirro badan wasaaradda wasiirkii ee ka horeeyay kaalmooyin ahaa waa is aragnay hadallo macaan iyo martiqaad iyo dhaxgal iyo waxqabad buu noola yimid haba yaraatee wax dhaqaaqana maanaan arag. shaqaalaha dawladda ayaa ka cawda mushaar la'aan iyo musuq lagu sameeyo. Xasan Abshirow Maxamed oo ah gudoomiyaha shaqada iyo shaqaalaha qaranka ayaa sheegay in 10kii sano ee la soo dhaafay 63 bilood oo kamida aysan helin wax mushaar ah. muddadii 10 sano ama 11 sano lagu sii socda shaqaalaha dawladda waxaysan xuquuq helin markii lagu daro bishii shalay dhamaatay 63 bilood baa aysan xuquuq helin. waxay heleen 61 bilood yay xuquuqdooda heleen. halka waxa ka dareemi kartaa inay dad muwaadiniin ah wadankooda jecel rabana inay ku sii shaqeeyaan maanta inay ku sii shaqeeyaan oo jecel yihiin. qaabka shaqada iyo da'da muwaadinku waxa uu leeyahay inuu ahaado shaqaale wadamada horumaray kama sareyso da'da 60ka laakiin xafiisyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee dalka hadda waxaad ku arkaysaa dad da' ah oo joogto u shaqeynaya. waxaa laga maarmaan ah in dawladdu ay garato daryeelka muwaadinka shaqaalaha ah. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.